السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قال رماتي مالك سؤال جوكتان وحرنا إلى جبر دباتيسن أو يعني دبات الشجنس إنا عاونو لكن كان إن شاء الله وحن فيها إنا يجرب استعيد دونتان يقول الناس وحياة وحمر وحبنا أركي إيده الشجنس يعني وحكي الشجنس يعني عنق أيضا شيء أو يعني دباتيسن أو حنوسن muhiimadu ma ahan in ayada ay dhibaato sheeganayso muhiimadu waa cunugaas yar inaa caawino ilmahaas yar oo aad u xanuunsan haddana intaasoo bilood ugu yaraan sanadku dhawaad yani ka sheeganaysay cunugana walaahi markaa aragtid aad caloosh ku xanuunay oo sababta cunugu uu sii dhimanaa tacbaan lafo sii noqonaya marka asxaabay dad badanna waxay yani ka sheeganayaan in yani ay cunuga soo xaday laakiin muhiimadu ma ahan cunuga inkastoo dadka ay yani qaldan yihiin oo qofka aan lagu xukmin waxaadan wali aadan adi hubin tan kale xamarna qofkii midda kale idin sheegayana waxay tahay qof inuu xamar la imaado cunug inuu soo xado oo xamar la imaado inuu yani cunug soo xado inuu yani ka xanuunsan yahay social media ma la imaan karo sababtoo ah gurigaas qofkii ku dhashay iyo qofkii hadda soo galay hataa yani guri xamar ku yaalo waa qasab waa la kala ogaanaa cunug la soo xadayna social media qof ma la soo fadhiisan karo marka asxaabi biliis aan gabadhaas caawino lamarkeeda shaashada kor u saaran yahay aniga waan wacay waan la hadlay insha Allah YouTube-keygana waan la soo fadhiisi doonaa oo u tagi doonaa insha Allah marka asxaabi aan caawino gabadhaas waana salaamintiin meel kasta adduunka ku joogtaan baana idin rajeynaa inaa caawin doontaan gabadhaas السلام عليكم ساك واسبت سيتي سوماليا في عندنا حالي كبرواتنا عنك حنوسنا سوماليا إنسا ولا لغويا ما كستان دان سو عاونا نسو عاوسين iyagu noo shaari kare Soomaaliya qofkii soo caawin ka furay